nabadgelyada naxariista iyo nimcooyinka ee bahaydiin ahaadeen daawadayaal meel kasta oo aad dunida kaga sugan tihiin kuna soo dhowaada barnaamijkan oo aynu ku eegi doonno si faahfaahsanna uga warrami doonno geerida hogaamiyihii hore ee dalka Masar Maxamed Mursi. sidoo kale waxaynu barnaamijka kaga hadli doonaa cidda dishay, sida loo dilay iyo sababta loo dilay, halka uu ku dhintay oo ahayd maxkamad, sida subaxa wax uga dhaceen geeridiisa, sida loo aasay qaabka madaxda dunidu uga hadashay iyo siro kale oo xasaasiya. marka hore si aynu ku horeyno waa kuma Maxamed Mursi. magaciisa oo dhammaystirani waa Maxamed Mursi Ciise Al-Cayaad. waxay xustaa taariikhdu inuu ku dhashay gobolka Shaariqa tirsiga taariikhda miilaadiga 1951. halkaas ayuuna waqtiyadiisii koritaan, barbaarineed iyo noloshiisii aasaasiga ahaydba ku qaatay. dhammaystirka waxbarashadiisii dugsiga sare waxa uu mid ka noqday 10 qof ee ugu sarreeyay ardaydii wakhtigaa ka baxday dugsiyada sare, taas oo fursad u siisay inuu helo waxbarasho jaamacadeed oo bilaasha. waayihiisii waxbarasho waxa uu bartay cilmiga injineerinka isaga oo ka qalin jabiyey digrigiisii koowaad 1972. waxa uuna maasterta ama shahaadada labaad ee jaamacadda qaatay 1974. isaga oo intaa dabadeed diyaariyey shahaadada dhaktarka ama PhD-da loo garan ogyahay kana diyaariyey jaamacad ku taalla dalka Maraykanka. isla jaamacaddaas ayuuna kaaliye ka noqday, mar dambena waxa uu brofesor jaamacadeed ka noqday jaamacado ku yaala dalka Masar. kun 1977 ayuu ku biiray xisbiga Ikhwaanul Muslimiinka. 1979 ayuuna xubin ahaan uga mid noqday isla xisbigaas. doorashadii ugu horreysay waxa uu isu soo taagay 1995, inkasta oo uusan soo bixin kuna guulaysan inuu noqdo xubin baarlamaan, balse dadaal, karti, howlkarnimo badan oo uu tusay bulshada reer Masar ayaa keentay in 2000 ay u suuro gasho inuu noqdo xubin ka mid ah baarlamaanka dalkaas, isaga oo markiiba afhayeen u noqday xubnihii baarlamaanka ugu jiray xisbiga Ikhwaanul Muslimiinka. waxa uu caan ku ahaa daadihinta doodaha ismariwaaga, waxa uuna noqday xubinta ugu kulul ugu go'aanka adag ee ku jirta baarlamaanka dalkaas, isaga oo laf dhuun gashay ku noqday xukuumaddii wakhtigaa jirtay. dhowr jeer ayaa la xidhay oo ay ugu dambeysay 2011, isaga oo waa kasta wajahayay xabsiyo dhaadheer oo wakhtiyo badan qaatay, waxaana la soo daayey jimcihii loogu magacdaray Jimce Al-Arqab. mudaharaadyo ay malaayiin qofi wadeen xukuumadda Maxamed Xusni Mubaarak u maara weydii dunidu wada majeeratay oo maanka bulshada reer Masar ka soo go'ay, dadkuna ku dalbanayeen isbeddel dalka ka dhaca iyo in madaxweynaha muddada dheer talada hayay iskaga dego, ayaa keentay in Maxamed Xusni Mubaarak xilka laga tuuro. wakhtigaasina waa cusub baa u beriyey bulshada reer Masar, kaas oo keenay yegleelidda iyo in markii ugu horreysay loo oggolaado xisbiyo furan oo dimuqraadiya. waxaa loo doortay Abriil 2011 inuu noqdo Maxamed Mursi musharaxa doorashada u matalaya xisbiga xorriyadda iyo cadaaladda ee dalka Masar, isaga oo ku guulaystay aqlabiyad shacab oo aad u badan, taas oo aan wax doodi ka imanin. waxaa markii ugu horreysay loo aqoonsaday madaxweynihii ugu horreeyay ee dalka Masar, kaas oo kursiga ku yimaada hab dimuqraadiya. أقسم بالله العظيم
أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري. hal sano oo uu talada dalka Masar madax ka ahaa isbeddello fara badan iyo wax madaxda dunida islaamku ku dhici weydeen uu ku dhacay sida taageeridda si muuqata iyo si qarsoonba bulshada reer Falastiin ayaa wasiirkiisa difaaca ahaa madaxa ciidamada haddana ah madaxweynaha dalka Masar Abdel Fattah al-Sisi inqilaab ku sameeyay xukuumaddii codka shacabka ku timi تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت. يؤدي رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية ولحين انتخاب رئيس جديد. waxaa la qabtay oo la xidhay madaxweynihii halka sano talinayay 4 sano oo uu xidhnaana xitaa uma aysan suuro gelin inuu arko qoyskiisa. sanadihii u dambeeyay waxa uu ka cabanayay xanuuno badan oo uu ka mid yahay xanuunka sonkorta iyo wadnaha sida uu sheegay garyaqaankiisa isna waxa uu cadeeyay in la isku dayayo in la kharajiyo isla kala fadhiga u dambeeyay ayuuna maxkamadda ka cadeeyay maxamed mursi oo isla subaxa la soo taagay maxkamad ku taala dalka Masar ayaa garsooraha maxkamadda ka codsaday inuu hadlo isaga oo yiri ilaa waqtigan ma arko maxkamad warbaahin iyo qareenka ay maxkamaddu sheegtay inay ii qabatayna ma hayo xogo ku filan oo uu igu difaaci karo waxaase la yaab ahayd markii maxamed mursi maxkamadda ka dhex sheegay inuu hayo sir xasaasiya Masar halis ku jirto una baahan yahay inuu goloweynaha ciidamada dalka la wadaago sida la sheegay fadhi gaaban isagoo jawaab ka sugaya guddoonka maxkamadda kadibna maxamed mursi ayaa dhacay isaga oo muddo 30 daqiiqo suuxsanaa aan helin wax gurmad ah la wada aamusnaa qof kastaana halkiisa taagnaa ayaa qaar ka mid ah dhakhaatiirta dalka Masar ee ka mid ahaanshaha xisbiga Ikhwaanul Muslimiinka loo xidhay maxkamaddana la saarnaa maxamed mursi ka dhawaaqeen shabakga kala xadeeyay maxaabiista iyaga oo ku dhawaaqaya u gargaara ama noo fura annaga ayaa u gargaarayna dadka qaar ayaa qaba in madaxweynihii hore ee dalka Masar maxamed mursi lagu taabtay sun sidii loo kharajiyay Khalid Mashcab waxaase xaqiiq aan la baal mari karin ah in xanuuno isbiirsaday daryeel la'aan si xumo dawada oo lagala dagaalamay ay sabab u noqotay inuu dhinto maalintii Isniinta isaga oo ku dhintay maxkamadda dhexdeeda waxaana ilo xogagaala oo meesha ku sugnaa sheegeen in laga qaaday maxkamadda iyadoo ay cadeeyeen in loo qaaday meel aan la garanaynin kadibna lagaga dhawaaqay telefishinka afka dawladda ku hadla inuu dhintay isla subaxii xigayna waa la aasay arooriyo hore iyadoo dadka reer Masar ee uu madaxweynaha u ahaan jiray asxaabtiisii gaarka ahayd iyo qoyskii weynaa ee uu ka dhashay loo diiday inay ku tukadaan salaada janaasada marka laga reebo 2 wiil oo uu dhalay waxaase salaad qayba lagaga tukaday dunida oo dhan qaar ka mid ah madaxda dunida oo Turkigu u horeeyo ayaa cambaareeyay wixii maxkamadda ka dhacay iyo qaabka loola dhaqmay kuna eedeeyay Abdel Fattah al-Sisi inuu ka dambeeyo balse qaramada midoobay ayaa codsaday in la baaro meydka madaxweynihii hore ee dalka Masar dawladda Masar ka dhisan ayaa si ka biyo diiday arrinkaas kuna gacan saydhay